السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada cashirka koobaad. Welcome to lesson 1. cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay the alphabets, alifbeetada. The alphabets, alifbeetada waana cashirka koobaad, lesson 1. cashirka koobaad, alphabets wax kale maaha, waa alifbeeto. run ahaantii alifbeetada dadka intooda badan way yaqaanaan, laakiin waxa aan ugu talagalay oo cashirka koobaad aan uga dhigay lacala haddii ay jiraan qof iyo laba aan aqoonin ama qof doonaya in la xasuusiyo oo markaasi raba in hoos laga soo bilaabo. waxa ugu horeysa alifbeetada A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. xarafkan ugu dambeeya wadamada qaar waxaa laga yaabaa marka ay ku dhawaaqayaan inay yidhaahdaan Z, Z. waana sax oo markaasi wadamada qaarna waxaa laga yidhaahdaa Z, wadamada qaarna Z. marka labadaba midkii aad u barato waa sax, waxaa kasii fiican labada noocba inaad u barato. marka alifbeetada waxyaabaha aan doonayo inaan idinka xasuusiyo waxaa ka mid ah waxa ay u kala baxdaa vowel and consonant. vowel waxa weeye waa shaqal, consonant, consonant waxa weeye waa shibane. wax kale ma aha, waxaa la yidhaahdaa vowelka ama shaqalka waa dhawaaq oo marka aad ku dhawaaqayso xoogaa afkaada uu yara furan yahay ama uu yara furmayo. consonantina ama shibane waxa weeye dhawaaq oo marka aad ku dhawaaqayso ama codkiisa uu kaa soo baxayo uu afka isku yara qabsamayo ama sidii wax isku qabsamayo kale uu ekaanayo. marka wax kale ma aha, waa un intaas. marka vowel iyo consonant, shaqal iyo shibane ayay u kala baxaan. marka shaqalka waxa weeye kuwani aan midabka goonida ah u sameeyey oo jaalaha ah waxa weeye waa A, E, I, O, U. waa shantaas. vowelka waxa weeye waa 5. shibanaha waa intan kale ee kasoo hadhay ee midabka cad iyo wayda oo mararka qaarkood la yidhaahdo wayda, marmarna waxa ay noqotaa vowel ama shaqal, mararka qaarna shibane ama consonant. marka taas weeye waxa aan midabka goonida ah ee keligeed aan ugu sameeyey. labada dhinacba waa lagu tiriyaa. marka shibanayaasha
waxa weeye waa B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. shibanayaasha waxaa la yidhaahdaa waa 21 oo alifbeetada ingiriiska. 21 waa shibanayaal, 5 waa vowel. marka kuwa shaqalka ama vowelka waxyaabaha aad ku xasuusan karto waxaa ka mid ah erayaashan af Soomaaliga ah oo ah Axmed, eedadiis, isha, ooda, u geliyey. haddii aad tiraahdo Axmed, eedadiis, isha, ooda, u geliyey, markaasi 5tii vowel ayaa kuu soo baxaya oo sida ay isugu xigaan taas ayaa lagu xasuustaa. marka waxyaabaha kale ee alifbeetada waxaa weeye in ay u kala baxdo capital letters iyo small letters. capital letters iyo small letters. hadda xarfahani aanu fiirinayno waxaa la yidhaahdaa capital letters ama waxaa loo soo gaabiyaa caps. waa xarfo waaweyn. small letterskana waa kuwanna waxaa la yidhaahdaa small letters. small letters waa xarfo yaryar. marka waa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.